daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films oo aad uga barateen arrimaha Bollywoodka sida Tamil, Telugu, Malayalam, Bollywood iyo kuwa kale oo badan. Barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa superstar-ka Sunny Deol waxaa tiyaatarada u saaran filimkiisa shactarada badan ee Buster Boys sidoo kalena maalmahan saxaafadda si joogto ah ayuu ula falgalayaa. xidigani lagu magacaabo Sunny Deol oo hadda 60 jirsaday ayaa la weydiiyay in la soo gaaray xilligii uu Bollywoodka kabihiisa ka qaadan lahaa dhanka filimada jiristooda maadaama wiilkiisa Karan Deol sanadkan dambe Bollywoodka ku soo biiri doono. Sunny Deol waxa uu yiri filim jirista ma ahan sida sportska oo kale waayo tartan adag kuma jirno qof walba xirfadiisa uu wadan karaa inta uu shaqadiisa jecel yahay. aniga ahaan hadda iyo mar u dhow inaan filimada jiristooda joojiyo diyaar uma ihi waxaan rabaa inaan shaqada aan jeclahay bartanka kaga jiro. waan jeclahay sanad walba 3 ilaa 4 filim inaan sameeyo laakiin xilligan Bollywoodku sheeko fiican ma samayn karaan sidaa darteed waxaan rabaa inaan shaqadayda sii wato si adag u shaqeeyo maalin walbana baadi goobo samaynta sheekooyin tayo wanaagsan leh. Sunny Deol in ka badan 34 sano ayuu ka tirsan yahay Bollywoodka. sanadkii 1983 ayuu ku soo aanbaxay filimkiisii Betab ee blockbuster-ka noqday. haatana wuxuu ka mid noqday ama uu ka mid yahay taariikhda superstar-radii Bollywoodka kuwooda ugu awoodda badnaa abid soo maray. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay Sunny Deol oo dhawaanahan aan ka fariisan doonin jilista filimaanta maadaama uu gaaray 60 sano. daawadayaal ha mugaanina inaad saxafi filmi subscribe dhahdaan si aad u heshaan filmo iyo waliba sheekooyin ku saabsan Bollywoodka.